الو ciyaaraha rabnaa inaan ka hadalno faan ما شاء الله marka aad taqaanay ciyaar اوكي boqor aad ma santahay degmada Diisoor waxa ka socdo muddo ku dhow bil tartan ciyaareed kaasoo lagu magac daray tartanka soo dhaweynta gudoomiyaha degmada Diisoor mudane Ismaamane Abdi iyo dhiirgelinta ciyaartoyda degmada Diisoor tartankaasi waxa ka qayb galay kooxo oo gaarayaan 10 kooxood oo marka tartankaasi oo bilowday bishii 5teeda kooxahaasi waxa ku jiraan groupyo group laba group waa 5 iyo 5 labada groupna waa A iyo B hadda heer groupki waxa maraynaa oo gabagaba ah sida hadda aan ognahay waxa tartanka ka soo baxay groupyadaasi noo harsan laba kooxood oo groupka A iyo B aan ka sugayno maalin Sabtida iyo Axad waana kulamada ugu xasaasiyada badan labada kulan ee dhiman groupkii maadaama gabagaba yahay marka tartankanna saad ku sheego waa gudoomiyaha lagu maadaray soo dhaweyntiisa iyo dhiirgelinta ciyaartoydu wixii abaalmarina ah iyo tartankan waxa balan qaaday hore u balan qaaday gudoomiyaha ana soo dhaweyn ugu fiican gool dhalinta kooxda ugu fiican oo akhlaaq ahaan iyo tartanka guud taay ciyaartoyda lagu xuli doono insha Allah waana ilaa heer xul oo degmo ay noqon doonto insha Allah taala waxaan u xigi doonaa insha Allah horyaalo marka tartanka asaasoo noogu socda si fiican uu ku socda alxamdulillah heer gabagaba oo groupki baan marayna waxaan u dhownahay insha Allah semi finalki oo isbuuc xiga noo bilaaban doono insha Allah taala kadibna finalki bisha Afrika ku soo gabagabeyn doono insha Allah okay hadda marka yaa isleedahay kooxdaas soo bixi doonta leedahay ma jiro maya anaga ma qiyaasi karno koox hebel soo bixi karta ay koox hebel sababtuna waxay tahay anaga sidana maamul ahaan ma dhihino kooxba muuqata kooxba saas ah sababtuna waxa dadka dhan waa u dhixaynaa laakiin cid walba waxa rajeynaa oo awood leh ama isleedahay in ay awoodeeda ay ku faanayso insha Allah waana u rajeynaa dhamaantood inta hartay inay rajo ka leeyihiin gruubyada inay ka soo baxaan waxa leenahay guul idin wada rajeynaa dhamaantoodna insha Allah taala guul u rajeynaa hadii koox kamid ah soo baxdana waa sida caadi ah inay soo baxdo waa muhiim laakiin kulligoodana way wada guuleystaan ma ahan kaliya hal koox ma ahan insha Allah tartankana si u soo dabcan waxa iska cad waay hal koox ku guuleysan doonta kooxdaasna Allahu a'lam ilaah baan og laakiin dhamaanteen waa wada guuleysanay haduu si wanaagsan noogu dhamaado insha Allah okay marka adwa AB yaa u dhici badan gruubyada dibaha sida hore ku sheegay groupka markii la dhaho group B kooxda al-Aamin ayaa ugu dhib badan 9 dhibood iyo 4 gool ayada ku hogaaminayso laakiin groupkan kale oo groupka ugu xamaasada badan ah kaliya waxa ugu dhib badan HL Jazeera oo si automatically ah ayadana u soo baxday 8 dhibood iyo 8 gool lah laakiin waxa meesha ku jiro laba kooxood Sinai iyo Sidoy oo ah kulankan ugu dambeeyo oo xaqiijin doona inay kooxdaas labadooda mid soo baxdo santahay wareysiga waxaan siiyay gudoomiyaha sportska degmada Diisoor oo ku sugan degmada Diisoor halkaan ugu mahadcelinaa love you saaxiib iyo noolaaw